22 jir ku dhaqan deegaanka Cali Xeed ee gobolka Nowdal oo muddo fara badan la daalaa-dhacay xanuun soo wajahay oo dhanka wajiga ka asiibay waxa uu xanuunkan sababay inuu guud ahaan bukaankan oo lagu magacaabo Maxamed Saciid uu joojiyo hadalka isla markaana carabka iyo wajiga qaybo kamid ay ka soo baxaan waxyaabo ku cusub dhulka Soomaalidu ay degto isla markaana dhaqaatiirta mandiqadan ku sugan ay sheegeen inaan waxba loogu qaban karin gudaha dalka loona baahan yahay inuu helo cusbitaal caalami ah si loo baaro loona ogaado xanuunkan haya oo muddo fara badan soo ritay Maxamed Saciid aabihii ayaa waxa uu sharaxaya xanuunkan goorta uu ku arkay iyo goobihii caafimaad oo uu geeyay iyo waxyaabaha ay ku yiraahdeen dhaqaatiirta isagoo bulshada Soomaalida gaar ahaan dadka Islaamka ee ka danqanaya xanuunkan ka codsaday inay soo gacan qabtaan si uu ugu helo inankiisan yar lacag uu ku geeyo dhakhtar isla markaana uu caafimaadkiisa ugu raadiyo horta dhowr bilood diin baan ku badin rama ku akhrin juuti baan geeyo kolkii dambe oo 7 bilood kula maqnaayo raadiyo badan baan diin gacmaha kolka ku sidna 3 biloodna carabkiisoo dhaqaaqaya lama adalo hadal kama soo bixi jiro hadal qawa laga xid ku kasto geeyno eega wuxuu buqori jiro farmasiyada wax uga iibin buu oran jiray kacaynka ayaa haya kama maqan آخر وان كسب بحنا هذا نصنا بان ملاها قربانية قرقارة قلقلنا إنه يتعلم دافين وان في ليبان هذا نجي والله إيجو نوكي وحبي يقانان لي نكن حنون في سينا وان قرني جوادي سينا وان هاي نادل ونكن دكتور بدن بسوق مشروع حنون في شيء ما أرجع الله وحشية هذا جوادينا هيسين حنون فينا قرتين أيام كيفن جواد يقود دلدلان جواد هذا هيسين بلاد بالقود دلدل waxba way u kordhi waayeen ayba tamar leedeed ninkan 11 sano buu qaba labiya tanjir weeyaa dhowr qof oo dhalay in kastoo jiraan dhulalka ku baasan 12 ka sanadood qof kaliya isku naay xagga haleelka kolka ilaa ninkii xanuunku helay jeedan liibaan iska soddon ariyaan waaga haynay soddonkiina abaarihii iyo dabiibkiisii bay raaceen sanadadii horeba Cabdi Fataax Ahmed Somali Channel magaalada Boorama